iyadoo la fulinayo amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadanaa in saraakiisha da'da yar ee loo soo tababaray militariga ay ka muuqdaan hogaamada ciidanka xoogga dalka ayaa taliyaha ciidamada xoogga dalka General Cabdiwali Xasan Jaamac waxa uu isugu yeeray saraakiisha da'da yar ee ciidanka militariga kuwaasoo badankood aan laga faa'iideysan saraakiishan da'da yar qaarkood oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inaan xirfadooda looga faa'iideyn dalka iyagoo hogaanka sare ee taliska militariga ka codsaday in la howlgeliyo si waxa ay barteen dalka ay ugu adeegaan halka markaan imanayay muqdisho waxaan u imay scholarship waxaan galay imtixaankii ciidanka loo qaadiyay leeli sarkaalka ee dalka Uganda waxa diyaaradii lagu soo kala qoray waxa ii soo baxday 2 maalmood waxa horeysay diyaaradda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee scholarship-ka ku jira u baxay dalka Turkiga balse waxaan raacay tii wadadii aan anigu ku hamiyay ee fakarka ahayd waxa xaqiiqatan lama hilmaamaan in aynu u dhownahay oo saaxiib la nahay geerida taas baa lama hilmaamaan balse waxaan dirs la nahay haddaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guusha markasta waa dardargelina waxaan aaday Mareykanka markaan Mareykanka tagay oo wax bartay waxa la yaabay nin SNA ka socda oo Mareykanka taga wax barta oo buundo fiican ka keena waxay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa laga gudbiyaa report qaldan waxa jira ma ahan aqoon ma lahan markaas ana meesha aan tagay aan buundo fiican ku baasay ayaa hadan waxa lagu barbaariyay oo la ii sheegay inaan Mareykanka iska joogo aan baxsado أنا وحنا هاي ما بحثنا يو أنا وحي صادر وطن وحي صادر SNA فمل كيجا يو قوس كيجا مصادرين وحنا مثلا يا SNA وحنا كشغلة سمعة SNA وحنا على أوقاتي إن دلك دفاعه ما هنا دفاع قوس كيجا نفس الديدة وحنا قان صدي أنا وحالة شرط كجت إن صولابته ودك كصولابته شقيه استيل وحنا ديار واحد inaan sheerjito u dhinto saraakiishan da'da yar oo badankooda heer jaamacadeed kuna soo tababartay dalalka Turkiga, China, Uganda, Masar, Suudaan, Mareykanka iyo kuwa kale ayaa ka codsaday madaxda taliska militariga inay qayb muhiim ah ka qaataan dhalinyaradan dagaalka ku wajahan kooxaha nabadiidka si u hubiyaan rabitaanka shacabkooda ee ku aadan inuu nabad ku noolaado waxaa farxad noo ah inaan maanta taliyaha hortiisa ka sheegno wax walba oo aan taabanayno saraakiishii hore oo naga horeysay markaan wareysano minister gaal wuxuu ku leeyahay markaan xidigla ahaa mas'uuliyadaasaan haya waxay nagu qaadatay annagoo infantry soo baranay inaan ku dabaqno waxay aan ka soo barnay shibilnimadeena soo baranay ama jaamacadaha shibilka uga soo baxnay oo maamul xafiisyada hoose ah inaan ka shaqeyno annagoo rabnay markaan ka soo baxno kuliyadaha sida hadda leeyahay saraakiil badan yimid oo kale ay ka soo baxaan inaan tagno furimaha oo wadankeena aan u horno dhiigeena maadaama aan rabitaankeena ciidanka ku soo galnay marka dib u raacday taariikhda xoogga dalka Soomaaliya oo si akhrisid waxa aasaasay dhalinyaro uu ka mid yahay Allah naxariistay General Daawud ma ka liidana General Daawud waxa laga yaabaa xilligaa inay secondary ahaayeen maanta waxa naga buuxa jaamiciyaal master rag ah baa nagu jira hase ahaatee maana helin fursadeeni meeshii aan ku qaban lahayn positionkii aan ku qaban lahayn iyo welibana xilliga aan qaban lahayn oo duruufta ay soo masaamixin noo heeli oo aan u heelina dalka si aan u noqono ciidamada dalka Soomaaliyeed awoodooda soo saara calankooduna u istaago dalaan ciidan lahayn ma istaaga taliye waan arag waxa dalku ka dhaqaaq weynay waan xusuustaa waana nood gareeyay waanan hayaa aqoonta wax lagu dhisay wax lagu asaasay taliye haddii naloo siiyo fursad taliyaha ciidanka xoogga dalka General Gorod ayaa sheegay in hadda iyo wixii ka dambeeyay saraakiishan dhalinyarada loo dhiibayo hogaamada iyo qaybaha ciidamada si looga gudbo caqabadihii muddo haystay dhismaha ciidanka xoogga dalka aad baan ugu faraxsanahay inaan muxuu ahaa la kulmo saraakiil dhalinyaro ah oo aqoon leh oo haddana muujinaya waxa ay qabaan wadaniyad hadday tahay iyo aqoon hadday tahay iyo sida ay u arkaan inay wax u qabtaan waxaa la sii wanaag kalaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi inuu i weydiistay inuu arko saraakiil dhalinyaro ah
oo iyagu hoggaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka dhex muuqda marka dareenkii anigu aan qabay waxaa iswaafaqay dareenkii anigu aan qabay iyo kii isagu uu qabay waa iswaafaqeen laga bilaabo hoggaamada ilaa horin ilaa koox waxa weeye saraakiisha yar baan ka dhigayna haddii la yiraahdo ayaa ka dhigay waxaan qabaa inaad aqoonteedii leedihiin waxaan qabaa sida hadda rag u fakarahayn inaan u fakarayn waxba lama qaban karo waxba lama sixi karo waxba soo kordhi mahayaan waa inay wax soo kordhaan wey haddii ilaahay yidhaahdo ciidanku waa inuu isbedelaa oo annaga aad nagala wareegtaan xukunka toddobaadkii tegay ayay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kulan kula yeeshay hoggaanka sare ee ciidanka xoogga dalka wasaaradda gaashaandhigga kuwaas oo ka wada hadleen arrimo quseeya dib u kabashada ciidamada iyo waxyaabaha muhiimka ah si loo dhaqaajiyo dhismaha ciidanka. Cali Baasha Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.